إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، عنوانك درسينا مانتا وحوي الحياة الحقيقية taasoo macnaheedu yahay nolosha dhabta ah iyo jidadka loo maro ama wasaaisha lagu gaadho. waxaan halkaa ka fahnay inay jirto nolol dhalanteed ah, laanna shay dhab ah haddii la sheego mid dhalanteeda garab yaalla. nolosha dhabta ah ee xaqiiqada ah ee biyankaba dhibcaanka ah, noloshaas tiirar bay leedahay, wasaa'il iyo jidad loo maray leedahay. muhim marka waxaa ah in uu ruuxa muslimkaa ogaado ama ruuxa caqilka iyo caqliga leh sidii uu ku gaadhi lahaa nolosha dhabta ah iyo jidkii uu mari lahaa. inta dhulka korkiisa joogta oo caqliga leh ama garashada leh kulligood hal ujeedaa ka dhaxaysa, hal taarget bay leeyihin. taargetka ka wada dhexeeya waxa weeye mid kasta wuxuu raadinayaa nolol dhab ah, ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado. mid walba wuxuu raadinayaa oo u ordayaa intaas sideed ku gaadhaa nolol dhab ah oo degan oo nasiino iyo raaxo leh oo xasilooni leh. dhibkan iyo tacabkan iyo murugtan iyo walbahaarkan iyo kadeedkan adduunyada nagu haystana seed uga baxdaa. arrinkaasi waa arrin ka dhexeeya bini aadamka o dhan buu ka dhexeeya. gaalku wuxuu doonayaa u ordayaa inuu gaadho nolol degan oo raaxo leh, muslimkuna wuxuu u ordayaa nolol degan oo raaxo leh buu raadinaya. laakiin jidkii loo mareeyey ayaa lagu kala gedisan yahay. qaarna jidkii saxda ahaa bay heleen, wabitaali noloshay dhabta ahayd bay gaadheen. qaarna jidad ismoodsiis ah oo markaa iyaga un la noqotay bay mareen, wabitaali nolol ay ku khasaareen bay ku dhex jiraan. haddaan tusaalayaal soo qaadano, dadka qaar ka mid ah waxay la noqotay nolosha xaqiiqada in lagu gaadhi karo adduunyada oo la ururiyo. inaad adduunyo hesho, xoolo dhigato, guryo iyo maguurto yeelato, accountiga wax kugu jiraan, gaadiid leedahay, caruur leedahay,
taasaa waxay u qaateen in badani in lagu gaari karo nolosha raaxadeeda iyo xasil iyo deganaansho in lagu heli karo. waa siday dadka intooda badan la tahay. kuwaan iyagoo aakhiro rumaysanayn oo gaalada ah ayaga taa unbay la tahay. in badan oo aakhiro rumaysan ayaga laftooda yacni waxay u qaateen jidka lagu gaari karo raaxada iyo nolosha dhabtaa inay tahay inaad waxoogaa adduunyaa hesho. laakiin way noqon weyday. adduunya waa lagu gaari waayey, deganaanshiya raaxo waa lagu gaari waayey. midka raadinayana dhib buu ku raadinaya, midka hayana dhibaatuu ku haya. bal u fiirso, marka ugu horrayseed raadinayso dhib iyo dhidid iyo rafaad iyo silic iyo yacni waxa weeyaan khatar badanood gashay ayay kugu soo gelaysa. wax raaxa kugu soo gelaysa maaha. markay ku soo gasho kuma aadan nasanin. ayadii haddana xisaabinteedii, ka warhaynteedii, horumarintaad ugu samayn lahayd oo u badin lahayd baad haddana ku mashquulshay. kaaga daranta waxa weeye walbahaar iyo murug badan waxaa kugu haya talow mustaqbalan maxay noqon doontaa, maxay ku dambayn doontaa. adiga laftaada ama waxaanay dhib lagugu geystaa, ama xoolahan kadaata aada haysaay dhibaata un ku timaadayo baaba'daa. ka naf jecel nin xoolo hayaayo cid kaloo dhan ka naf jecel. marka ninkii hayay rafaad iyo dhib buu ku qaba. ha ahaatee waxaa laga yaabaa isaga oo haya haddana inay u suuroobi weydo sidii la rabay inuu isticmaalo. cudurraa laga yaabaa inay ka suka maraan, oo isaga oo milyaneer oo xoolo oo dhan adduun oo dhan loo dhiibay haddana in lagu ibtileeyo cudurro u suurtagelin waaya inuu waxoogaagii haystay xataa uu yani intifaacsado. adduunya marka lagu degi waa nin ka dhergay oo hadda le waan dhergay oo adduunyo hadda waxa weye waan ka soo noqday oo qalbigaygii waa xasiloon yaho waa degay ma adarkaysa. bal mar kasta oy kuu kordho oo shilin kuu kordho walbahaar iyo murug iyo macnaha waxa weeyaan qalbigaagoo mashquulsan iyo deganaansho la-aan un bay kuu kordhisaa. macnahana waa macnaha rabbi subxaana watacala qur-aanka uu ku tilmaamay falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inama yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun. rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala nabigiisa ku yidhi waxba yayna ku cajab gelinin xoolahooda iyo carruurtooda, waxba yayna ku cajab gelinin, waxba ha u bogin oo ha jeclaysanin. wuxuu un alla doonayaa subxaana watacaala xoolahooda iyo carruurtooda adduunka dhexdiisa in lagu cadaabo, kadibna naftoodu ay baxdo ayaga oo gaalo ah. wahum kaafiruun. adduunyadii xoolihii iyo carruurtii baa rabbi wuxuu ka dhigay inay cadaab u tahay dadkaan allah rumaysnayn subxana watacaala. say cadaab ugu tahay? cadaab waxay ugu tahay raadinteediina waa ku cadaaban yihin. hadhow markay helaanna ilaalinteedii bay ku cadaaban yihin. qalbigoodiina wax deeqayo xasilinaya ma aha. waxay ka dhergayaan ma aho yani adduunye lagama dhergo. oo nabigeena sal alay waslam waa ka xadiiska saxiixa ku odhanaya manuumaani laa yashbacaan. laba ma dheragta buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh. taalibu dunya wa taalib alcilmi buu nabi uri sal alay waslam. ninka adduunye raadinaya weligii kama dhergo. ninka cilmiga shareecada raadinayana isaguna ma dherga buu rasuulku uri salawatu rabbi waslamu caleyh. marka xadiiska kale saxiixa nabigu ku odhanaya sal alay wasalam law kana libni aadama waadiyaani labtagaa haalian. haddii ibni aadamku uu lahaan lahaa oo la siin lahaa laba tog oo dahab ah, sida riwaayo kale kusoo aroortay, laba tog oo dahaba haddii la siin lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa. mid saddexda haddii la siiyana mid afraad buu raadin lahaa. walan yamla'a fama bna aadama ila turaab buu nabi sal lay slam. wafii riwaaya walan yamla'a jawfa bna aadama ila turaab. ibni aadamka calooshiisa iyo afkiisa carro unbaa buuxin karta. saas daraaddeed intaa ordaysay raadinaysa cimrigoodii ku dhammaystay raadinteeda deganaanshiya raaxa mayna ku gaadhin. ayagoo silicsan, rafaadsan, dhibaataysan, nasiino waaye unbay dhaafayaan adduunyada ka tegayaan, weligoodna ka dhergi maayaan.
nolosha xaqiiqiga marka adduunyo qaar baa mooday in lagu gaari karo, laakiin waxay noqotay taasi dhalanteed bay noqotay, wax xaqiiqa ma ah. ayib, waa midda hadda masalan dad badan ka dhaadhacsan, oo dad badani waxay isleeyihiin malaha haddaad waxoogaa kuusa heli lahayd ood adduunyada ka heli lahayd waabad nasan lahayd, waad iska nasan lahayd. laakiin nasiina ma taalo lagu nasan waayo. meel kasta oo tagto waxun baa ka dhimay, meel kastoo tagto waxbaa ka dhimay. halkanaad timaadeen waxaa la islahaa malaha haddaad yurub meel uun ka gaadho taqriiban waxa weeye adiyo yani murug iyo walbahaar iyo gaajo iyo rabaad iyo waad isdaynaysa. khayaal noocaas oo kalea ku jira dadku markay meeshan imaanaya. meeshanaa la yimid, wixii la filayay waxaanayn baa loogu yimid. waa la qaxay, haddana meel kalea loo qaxay, ingiriiskaa loo qaxay, mar norway baa loo qaxay, mar australia loo qaxay. intii qaxee la sameeyey meellaba waa loogu tegi waayo nolol degan, nolol xaqiiqi oo la raadinayo dadku raad goobahayaan meella loogu tegi waayo, loona tegi maayo. xaqiiqo leanna ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu qoray in aan adduunyadan korkeeda wax kastoo lagugu siiyaba adduunyo laguma gaadho, xasilooni iyo raaxo laguma gaadho. xataa haddii gacanta lagu geliyo ku deeqi mayso, kuna dejin mayso, raaxana ku heli mayso, bal dhib iyo kadeed unbay ku siyaadinaysa. dadka qaarkood waxay is yidhaahdeen wasiilada lagu gaadhi karo raaxada iyo nolosha dhabta ah waxay is yidhaahdeen waa inaad magac yeelato, shuhra, inaad magac yeelato caan baxaba. markaasa waxaad arkaysaa intaasoo jid buu u marayaa siduu caan u noqon laha la yaqaano. dad baa waxay u dhimanayaan journaalku inuu qoro, telefishinka in laga arko, yani waxa weeyaan inuu magac yeesho oo la sheego. intaasay moodayaan hadday helaan inay malaha waxa wey raaxo iyo deganaansho gaadhayaan. hayadana waa khayaali wey, waa wax macnaa waxa dhalanteeda waxba ka jirin. dadka qaar bay la noqotay hadday kursi ku fadhiistaan oo madax noqdaan oy dadka u taliyaan inay malaha degi lahaayeen oo raaxo gaadhi lahaayeen. saas daradeed ba arkaysa geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuulahayaan sidii unuu kursi ku gaadhi lahaa, oo dad uu madaxa uga istaagi lahaa, oo amarkiisa iyo taladiisa loo qaadan lahaa. intaasay qaarkood moodayaan inay ku gaadhayaan noloshii la rabay iyo raaxadii iyo xasiloonidii iyo noloshii xaqiiqiga ahayd. laakiin iyadana haba yaraatee wax lagu gaadhaayo ma ay jirto, noloshaad doonaysa ku gaadhi mayso. kursi ku fadhiisatay, amarkaagiina la qaaday, ciidamo iyo dawladna garabkaaga oroday, laakiin maxaa ka dambeeya? waxaa ka dambeeya natiijo ah in macnaha waxa weeyaan yani cabsidu kugu kordho, deganaansho la-aansuhu kugu kordho, yani waxa wey noloshii raaxo aadan ka gaadhin, akhiiranna marka dambe adoo eedaysana inaad ka dhex baxdo ti ilaahayna kuu dambayso subxana watacala. kursi iyo boqortooyo iyo madaxnimo iyadana lagu gaadhi maayo, xasilooni lagu gaadhi maayo. laakiin dad bay la noqotay. qaar baa waxay ka gashay noloshii xaqiiqiga ahid raadinteedu waxay ka gashay in ay waxyaalaha maandooriyaha agalaan, inay isticmaalaan masalan mukhadiraadka. yani waxa weeyaan naftii waa la silecsan, wuxuu raadinayaa waxoogaa maaragtay inuu ismaaweeliyo naftan taasa iyo dhibkan kadaasa adduunyadu macnaa waxa weye uu ismoogeysiiyo. markaasa waxaad arkaysaa wuxuu gelayaa daroogadu gelaya, qaad buu cunayaa, yani khamruu cabbayaa, xashiish buu isticmaalayaa. sababtu maxay tahay? sababtu waxa wey noloshiiba u qadhaaraatay. noloshan qadhaadh buu doonayaa saacada inuu ka maqnaado. waktigaas uu garaadkiisu maqan yahay ayuu doonayaa inuu waxoogaa iskaga khafiifiyo yani wadcigii iyo dhibkii ay lahayd nolosha uu ku noolyahay. haddaad aragto ruux yani waxa weeye maandooriye iyo mukhadiraad iyo darooga iyo galay haddaad aragto, waxaa geliyey noloshiibaa u dhadhami weyday oo uu macaan iyo dhadhan ka waayay. markaasay halkan ka gasho wuxuu tiri wallahi meeshaan aad waxoogaa xasilooniya ugu gaadhaysa. daqiiqadaha marka waxoogaa maankiisu maqan yahay oo uusan ilmo ka fikiraynin, xoolo ka fikiraynin, wax walba uu ka maqan yahay oo sarqaansan yahay, saacadahaasu waxoogaa wuxuu iska dhigayaa sidii wax nasan oo kale. marka taana lagu gaadhi waa, taana ayadana lagu gaadhi waa wax lagu heli karo ma ah. ayib, xaqiiqadu waxay tahay marka nolosha xaqiiqiga ee dhabta iyo xasiloonidii raaxada iyo nasiinadu xaggay ku jirtaa? waa jawhar luntay wey, jawhar luntay oo si walba inta loo baadi goobay lalaayahay.
xoolaa laga raadiyey laga soo waa, mukhadiraad baa laga raadiyey laga soo waa, magac baa laga waayey laga raadiyey laga soo waa, kursi baa laga raadiyey laga soo waa. xagee ku jirtaa marka? su-aasha isweydiinta le waxay tahay, waxaan rabaa inaan adduunka nasto, inaan raaxaystana waa rabaa, inaan degana waa rabaa, bal ii tilmaan sababteen ku gaari karaa. taa way midda markaan doonayno waxoogaa inaan isdul taagno oo aan tilmaano asbaabta dhabta ee ruux hadduu la yimaado noloshani ay u macaananayso raaxo uu ka gaadhay. wax bedel ka noqon karana ma jiro, wax bedel ka noqon karo ayaga lagu bedelan karana ma ay jirto. xaqiiqadu waxay tahay marka waxa aan soo sheegnay oo dhan waxba kaa deeqi maayo. oonka ku haya, gaajada ku haysa, rafaadka ku haya, daalka ku haya waxba kaagama qaban karaan. inay uun kugu sii kordhiyaan mooye waxba kaagama tiri karaan. laakiin jid kale ayaa loo maraa nolosha dhabta ah raadinteeda, nolosha xaqiiqiga iyo raaxada adduunyada iyo aakhiraba jid loo maraa jira, asbaab lagu helaanayo. asbaabtaa waxaa kow ka ah aliimaanu billahi tabaaraka wa tacaala wa bikulli ma yajibu aliimaanu bih. allah inaad rumayso subxaana wa tacaala, wax kasta oo inaad rumayso lagugu waajibiyeyna inaad rumayso. shay kastoo alla ku amray inaad rumaysona waa inaad rumayso. waxaa ugu weyn allah subxaana wa tacaala, malaa'igtiisa, kutubtuu soo dejiyey, rusushuu soo diray, yacni waxa weeyaan inaad rumayso ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa. rabbi subxaana wa tacaala wixii rume uu ku yidhi inaad rumaysaay waa shayga koobaad ama waa tiirka koobaad ee lagu gaari karo nolosha xaqiiqiga, nolosha dhabtaa midda lagu gaari karo, nolosha dhabta ah. saas daraaddeed nolol dhab ah waxaa haya oo xaqiiqiyo raaxa la ruuxi ilahay rumaysa subxana wa tacala. ruuxii iimaankaasi ka maqan yahay wax kasta oo gacantiisa ku jira nolol dhaba ma gaari karo, noloshaa macaankeeda ma heli karo. macnaha waxaa kutusaya aayado qur-aanka ka mid yaha xadiiska nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh. allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala, afaman kana maytan faaxyaynah wajacalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi ظulumaati laysa bikharijin minha. war cid bakti ahaa, bakti buu ahaa, maytan faaxyaynaahu markaasaan noololnay bu rabbi yihi subxana wa tacala. markaan noolaynana waxaanu u yeelnay nuurkii iyo iftiinkii uu dadka dhexdiisa ku socon lahaa. kaas iyo ma isku midba mid weli bakti ah mugdiyaalna ku dhex jira? labadaasaa la isgarab dhigay. mid markii hore bakti ahaa, nolol iyo naf la geliyey, markii nolol la geliyey oo noole laga dhigay ayaa waxaa loo dhiibay iftiinkii uu wax ku kala arki lahaa. kaasi waa mid. ka la garab dhigayo waxa weye weli waa bakti, nafi kuma jirto, haddana naf la-aanta iyo baktinimada waxaa u dheer mugdiye ayuu ku dhex jiraa. labadaasi ma siman yihiin? ma isku midba? maya isku mid ma. yaa waaya midka baktiga ahaa ee allah nooleeyey? waa ruuxii gaal ahaa ee allah qalbigiisa iimaan geliyey. noloshana waa nolosha quluubta, waa xayaatu liimaan. iimaanka noloshiisa waay, waa nolol khaas. ma aha nolosha nafleyd oo dhan ku jirta ma aha, ee xoolaha ku jirta, ee xayawaanaadka ku jirta, ee bini aadamka ku jirta, ee jinka ku jirta, ma ee malaa'igta ku jirta. ma aha nolosha noocaasa lagama hadlayo. nolosha laga hadlayaay waa nolol khaasa oo waxa weeyaan waa nolosha iimaanka. nolosha iimaanka oo quluubta ilaahay subxaana wa tacaala uu nooleeyo, noloshaa way midda laga hadlayo. inuu macnuhu saas yahayna aayadda kale qur-aankaabu rabbi ku caddeeyey subxaana wa tacaala, ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul ida dacaakum lima yuxyiikum. war dadka iimaanka lehee allah rumeeyeyow, yeela alla iyo rasuulkiisa markuu rasuulku idinku yeedho wax uu idinku noolaynayo. maxay tahay waxa rasuulku nagu noolaynayo, noogu yeedhayo? wuxuu noogu yeedhayaa ilahay waxyigiisa subxana wa tacaala. allah waxyigiisa soo degay baa wuxuu yahay midka quluubtana nooleeya, quluubtana nuuriyo iftiimiya, nolosha dhabtay xaqiiqigana lagu gaadho. nolosha dhabta ah waana midda rabbi subxaana wa tacaala uu ugu tilmaamay gaalada in ay yihiin inay bakti yihiin, inay bakti yihiin. innaka laa tusmicu lmawta, kuwa baktigaa wax ma maqashin kartid baa le nabiga sal alay wasalam. maxaa mawtaa loo yidhi gaalada? waaba kanoo waxbay dhisahayaan, teknolojiyadiiyo taqadumkaad aragteen bay sameeyeen,
يعني وحويان انت وافكر هيان محل لو يري وبختي لان قلوبتها بختي روح ذو